رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هدي إلهي راد سبحانه وتعالى waxaan meesha ka bilaabaynaa kitaabka lagu magacaabo الشhamaaئل الmuxamadiya. shamaa'il waa dhaqan, shamaa'il waa dhaqankii iyo aadaabihii iyo suluugii iyo waxyaabihii nebiga uu lahaa sala allahu calayhi wasalam. kitaabkaasaad la socotaan waa kitaab magaciisa aad iyo aad u qiimo badan yahay. habkuu nebigu u khalqanaa, sida jasadkiisu ahaa, sida uu wax u tilmaami jiray, shamaa'il guud ahaan ah ayuu kitaabku tilmaami doonaa. kolley markaan gudihiisa galno ayaanu arki doonaa kitaabka siduu markaa u hadlahayo. abu ciisa moxamed ibnu sarwana waa la yiraahdaa, ayaa kitaabka iska leh oo alifay. التirmidi waa sheekha caamkii aad taqaanaan ee kitaabka sunankee tirmidi la yiraahdo asagoo markaa lahaa. nebiga dhaqankiisa waa shamaa'il almuxamadiya, kutubo badan baa qortay, laakiin waxaad u moodaa sida uu kitaab imaamkan uu u qoray inuu yahay habka ugu fiican ama la doorto. imaamku wuxuu dhashay 209 hijradu markay ahayd, wuxuuna dhintay 279 markay hijradu ahayd. imaamku wuu indha la'aa, waahee indha la'aa, laakiin waxaa dood iyo muranku ka taagan yahay indha la'aantan ma ku dhashay imaamka mase markuu weynaaday ayuu indha beelay. ma waxaa lagu dhalay asagoo acmo ah oo arag la, mase wuxuu arag beelay markii uu weynaaday kadib markuu u safri jiray qoraalka iyo cilmiga inuu markaa alifo ama uu sameeyo. waxaase sida saxiixa ah la yiraahdaa amase ugu fiican inuu imaamku indha beelay markii uu weynaaday ayaa loo badan yahay 397 ama 397 xadiid ayuu ka koobnaan doonaa kitaabka. almuhiimsaan magaciisa ka fahamnay waa khalqiga iyo khuluqda iyo dhaqanka rasuulka sala allahu calayhi wasalam. warbixin inta aan ku gaabsano, baabu maa jaa fii khalqi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. darsiga haddaan u guda galno, kow wuxuu ka bilaabanayaa baabu maa jaa, wixii ku yimid ayuu baab u yahay fii khalqi rasuulillaahi, rasuulka khalqigiisii abuurkiisa sala allahu calayhi wasalam. fii khulqi rasuulillaahina way jirtaayo kutubaha qaar baa qora khuluqda rasuulka inay tahay macnaha dabeecadihiisa, laakiin khalqigaa ka wanaagsan. qaala alxaafid wuxuu yihi abu ciisa moxamed bin ciisa bin sarwa التirmidiy, imaamu tirmidi ah. xadahanaa abu rajaa baa noo waramay qutaybata bin saciid ahaa
can maalik ibnu anas buu nooga waramayo can rabiicata bin abi cabdiraxmaan rabiicata bin abi cabdiraxmaan xaggiisa can anas ibni maalikin anas ibni maalik xaggiisa annahu rabiica samicahu inuu maqlay anas oo yaquulu dhahaya kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam kaana rasuulu llaahi laysa bitawiili ku dheer ma ahayn albaa'ini ee iska baxsan dheeraan waxaa jirtaa xadka ka baxsan oon qurux fiican lahayn bitawiili albaa'ini dheerow dadka la dhaho saas la dhihi jiray dadka dheer ee iska baxay ma uusan ahayn nebiga walaa bilqasiiri mid gaabanna ma uusan ahayn rasuulka sal allau alayh wasalam hadduusan tawiil baa'in ah ahayn qasiirna uusan ahayn muxuu ahaa dhexdhexaad buu rasuulku markaa ahaawa dhexdhexaad ayuu markaa ahaayo dhanka dheeraanta ayuu markaa xigay laakiin dheeraan iska baxayoo baa'in ahoo iska dheeraaday ma ahayn walaa bilabyadi mid cadna ma uusan ahayn alamhaqi amhaq ah cadarawish baa la yidhaahdaa cadarawish iyo cadarawiis iyo wax noocaasoo kale ah waa cadka caddaanta ah oo aan ku jirin xumurka iyo guduudka caddaantu waa labo mid waxaa jirta caddaan ahoo amhaq baa lagu magacaabaa cardawiish iyo hadal noocaasoo kale ah waa caddaan aan waxba ku dhehnayn taa ma ahayn oo caddaantiisa way noo imaan doontaaye guduud baa markaa ku jiray saasuu markaa ahaa walaa bil aadami mid aadam ahoo maariin ahna ma uusan ahayn nebiga sal alla alayh wasalam mid maaran oo midabkiisu maaran yahay ma ahayn walaa biljacdi mid timo adagna ma uusan ahayn nebiga alqatiti oo jacdigiisuu daran yahay timo adayga kuuskuuska ah oo qidad ahoo adag oo kakan ma ahayn nebiga timihiisa walaa bisabti mid sabti ahna ma ahayn bisqooley baa la yihahdaa timaha aada u jilicsanoo mar allaala marka dabayshu ay timaado ay kala tuurtuurto macnaha timo aada u sibsib ah oo jileeca ka batayna ma ahayn bacathahu allaahu ilaahay baa soo diray nebiga tacaalaa amarkiisa sarreeye calaa ra'si 40 sana 40 jir madaxeeda yaa lagu soo diray waa bisbisha timaha bisbiska la yidhaahdo qofku markuu banaanka u baxo guriga ku shanlaysto dabeel markay timaado saasay u kala daadaadinaysaa jacdigana waa timaha adag ee fadhiya qatidkana waa jacdiga iyo adayga ee xoogga leh kaasaa markaa loola jeedaa xoog u adag bacathahu allahu tacaala ilaaha sarreeya ayaa soo bixiyey nebiga oo waa la soo diray calaa ra'si 40 sanatin 40 jir madaxeeda lagu soo diray 40 sano waa da'da nebiyada lagu soo saaro waa dadka madaxda noqonaya da'da markaa loo shardiyo waayo waa meesha ugu kamaalsanee qofku uu gaaro da ahaan akhyaarnimo xataa idaa balaqa ashuddahu wa balaqahee 40 sana 40 sano waa da'da kamaalka la yidhaahdaa qofka caqli uma dhinna garaad uma dhinna maamul uma dhinna doqonnimo iyo jaadcunid iyo hasaabo been hadduu iska galo waqtigiis waa ninkii ku ciyaaray heerkaa qofku hadduu gaaro wixii hore oo dhan oo ciyaalnimo inuu ka baxa la rabaa marka 40 sano yuu ku soo diray ilaahay walaysa ma lahayn fii ra'sihi madaxiisa walixyatihi iyo garkiisa 20 shacratan 20 tin baydaaa oo cad inta ciro ahaan nebiga ka soo baxday haddii la tiriyo 20 maysan dhammayn ama 20 meeye iyo ayuu ahaa oo mar allaala markii xataa saxaabadu waxay leeyihiin uu duhni marsado ama kareem uu marsado nebiga ama saliid uu marsado uu subko lama dareemi jirin
markii basaasad iyo mataqaanaa saliid uusan marinin cabaar busta iyo dhasta ay ku dhacdo markaasay banaanka usoo bixi jireen oo markaa la arki jiray. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiga sala allahu calayhi wasalam khalqigiisa saasuu markaa ka dhigay. walaysa ma ahayn fii ra'sihi madaxiisa wa lixyatihi iyo garkiisa 20 shacratan 20 tin baydaa oo markaa cad xagga cirada ka yaraayeen. kaas wuxuu tilmaamayaa rasuulka sal allahu calayh wasalam qaabkiisa iyo sida markuu ahaa. dheer baa inoo baxsan ma ahayn, qasiir gaaban ma uusan ahayn, cad cadaantiisu ay cadrawiish tahayoo cad iska caddaan ahoo waxba aan ku dhehnayn ma ahayn. aadam ma ahayn maaran, mid maariin ah, madow xigeyn ah, jacdi timo adag oo qadad ahoo timihiisu ay xoog u adag yihiin ma uusan ahayn. mid sabti ahoo timihiisu isbisan yihiin amase ay bisqooleyda timaha la dhaho oo aad u jilicsanoo dabeeshu kala tuurtana ma ahayn. ilaahay baa soo saaray calaa ra'si 40 sanatan 40 jir ayuu ilaahay kusoo bixiyey. fa aqaama wuxuu ku nagaaday meeshaasa ka boodna hadaay. fa aqaama wuu nagaaday rasuulka bimakkata maka 10 siniina 10 sano. 10 sano ayuu maka joogay nebiga. wa bilmadiinati magaalada madiinana 10 siniin 10 sano. sanooyin 10 ahna makuu joogay, sanooyin 10 ahna madiinuu joogay. 40na waa lagu soo diray. 60 bay markaa noqonaysaa. 10 iyo 40 lagu daray waa 60. watawafaahu allahu ilaahay baa oodsaday nebiga oo calaa ra'si 60 sana asagoo 60 jir ah. 60 sano asagoo jira ayuu ku dhintay. walaysa fii ra'sihi madaxiisa iyo walixyatihi garkiisana ma aysan lahayn 20 shacratan oo timood baydaa oo ciro ah oo cad ah. macnaha markuu leeyahay 10 buu madiine joogay, 10na makuu joogay, 40na waa lagu soo diray, 60 bay noqonaysaa. riwaayadaha aya taariikhda qaar baa waxay tilmaamayaan nebiga inuu 63 ku dhintayoo makana uu 13 joogay, madiinana uu joogay 10 sano oo markii nebinimada loo doortay. saa ayaa 40na lagu soo diray, 63 sida noo imaan doonta meelaha gobolka mid ah. laakiin markuu hadda leeyahay 10 buu inta joogay, 10na intuu joogay, 40 sano waa lagu soo saaray, waa 60. waxaa taariikh ahaan ay u isticmaali jireen carabta 60 markuu qofku gaaro waxooga uu ku darsado 60 meeyo la dhihi jiray. 50 meeyo, 40 meeyo. macnaa 40kiisaas ahaan ama 60kiisaas ahaan ayaa markaa dhici karta in loola jeedo. laakiin sida xaqiiqda ah nebiga 40 sana lagu soo saaray, 13 sano asagoo nebi ah makuu joogay, waa 53 isna wuxuu joogay madiina waa 63. saasay ahayd saasay markaa ahayd da'da nebiga. xadiidkii labaad. xadaثanaa xumayd ibnu mascada albasriy xadaثanaa cabdulwahaab aلthaqafiy can xumaydin can anas ibni malik qaala anas wuxuu yidhi kaana rasuulu اllahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam rabcatan dhexdhexaad. rabcada waxaa loola jeedaa rasuulku wuxuu ahaa mid mutawasit ah, macnaha dheeraan iyo gaabnaan u dhaxeeya. laysa biاطawiili mid dheer ma uusan ahayn, walaa bilqasiiri mid gaabanna ma ahayn nebiga sal اllahu alayh wasalam. xasana aljismi jismigiisa iyo jirkiisu miday fiican yihiin oo qurxoon yihiin uu rasuulku ahaa. mid dhexdhexaad ah, aan dheerayn aanna gaabnayn. xaggeesa loo tirinayay dheeraanta xaggeeda. marka gaabnaantii dheeraanta xaggee u badnaa haddii la dhaho xagga dheeraantuu ahaa. xasana aljismi jismigiisa rasuulku mid fiican oo qurxoonoo wanaagsan ayuu ahaa. wa kaana shacruhu
timihiisuna waxay ahaayeen laysa bijacdin midaan adkayn walaa abqin iyo midaan bisbisnayn, mid adag oo iyo kakanna ma aysan ahayn, wax sabati ah oo jilcanoo dabayshu ay kala hoobiso bisbiska oo kale taana ma ahayn. asmar allawni midabkiisuna midab asmar ah ayuu ahaa rasuulka sal alla alay wasalam. asmar allown marka la leeyahay waa caddaan wax ku dheehan. caddaanta wax ay ku dheehan tahay ee asmarka uu ku noqday nebiga ma aha midka madowga ah, laakiin midabkiisu wuxuu asmar ku noqday oo dhinaca caddaanka ah, guduud baa ku jiray. idaa mashaa markuu soconayo nebiga yatakafa'u waa horsocod, macnaha mid horsocod ah ayuu ahaa. waxaad moodaa nebigu markuu soconayo sida noo imaan doontaa inuu ku hoobanayo meel tog ah, macnaha nin dhulka goosanayo oo kale ayuu markaa u ekaa. kaana rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam rabacatan mid dhexdhexaad ah. rabcada maxaa laga wadaa? laysa biاطawiili walaa bilqasiiri, mid dheer iyo mid gaaban labada ma ahayn, oo u dhexeeyey. xasan aljismi buu ahaa, mid jismigiisu qurxoon yahay jirkiisa. wa kaana shacruhu timihiisuna laysa bijacdin, kuwa fadhiyo adag ma uusan ahayn, xoog u adag, walaa sabtin, kuwa xoog u jilcanoo bisbis ahna ma ahayn. asmar allawni midabkiisu miduu asmaraysan yahay oo midab guduud ah uu ku jira caddaanka ayuu ahaa. idaa mashaa markuu soconaya nebiga yatakafa'u horjeed buu ahaa, mid horey u taraaraxaya oo kale saasuu markaa ahaa. xadaثna محamed بن بشhاaر yعnي الcabadiي xadaثna محamed بن جaعفر xadaثna شhucبة can أbi إسxاaq qaala wuxuu yidhi samictu bara bni caazib baan maqlay yaquul asagoo dhahaya kaana rasuulu الlahi rasuulkii alla wuxuu ahaa salى الlahu عalيه wasalam rajula nin marbuucan afargees ah, macnaha dhexdhexaad ah, nin marbuuc ah ayuu rasuulku ahaa buu yidhi. rajul buu ahaa ninkaasoo marbuucan dheer iyo gaab labadaba aan ahayn, laakiin u dhaxeeya. bucayda kala fog maa bayna almankibayni garbihiisa inta udhaxaysa, garbihiisa inta u dhaxaysa bucayd bay markaa ahaayeen. masaafo ku jirtay, masaafo ayaa markaa ku jirtay macnaha oo way kala fogaayeen. marka waxooga hilib buu lahaa oo garbihiisa inta u dhaxaysa bucayd markaa ka dhigahayay. cadiimu ljummati jummadiisu miday cadiim tahay buu ahaa nebiga. jummada waxaa la yidhahdaa waa timaha kuwa ku soo dega weliba mankiga way badnaayeen oo kuwa cadiim ahoo badan bay ahaayeen, ilaa waxay soo gaarahayeen shaxmati udunayhi labadiisa dhagood bururtooda xadiinta, meeshaan yare ee dhagaha hoos u laalaadae gabdhuhu ay ku surtaan dhagaha iyo dahabka iyo kasoo lulaan, meeshaasaa la yidhaahdaa carjabada biah maasha allah. shaxmata udunayhi labadiisa dhagood carjawdooda ayay markaa soo gaarayeen. shaxmata udunayhi de calayhi korkiisa waxaa ahaa uu xiran jiray xullatun bilad xamraau oo casaan ah ama guduud ah. xulladu waa dharka isku jooga ah, dharka kore iyo kan hoose ee isku jooga ah ee qofku uu qaato oo weliba dhar guduudan ah ayuu nebigu watay, asagoo nin dhexdhexaad ah, garbihiisu ay kala fog yihiin, jummihiisii timihiisu ay mutawafir yihiin oo ay soo gaarayaan ilaa carjawda dhagaha. haddana uu kuu labistay dhar guduudan oo bilad ah. maxaa arki kartaa qurax? ma ra'aytu ma aanan arkin buu yidhi qad weligay axsana minhu wax ka qurux badan, wax ka wanaagsan nebi moxamed weligay ma aan arkin buu yidhi. qaabkaasuu ilaahay u khalqay,
kadibna haddii uu sii labis dharka uu xirtayna bilad ay tahay dhar isku joog ah, midabkuna uu sii guduudan yahay, ma ra'aytu ma aanan arkin buu yidhi bara ibni caazib qad weligay axsana minhu qof ka qurux badan ama ka wanaagsan. xadaanaa waa xadiidkii afaraad, maxmuud bin khaylaan, xadaanaa wakiic, xadaanaa sufyaan can abi isxaaq can bara ibni caazibin qaala wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arkin min dii limmatin mid tima u saaxiib ah, timo badan leh, oo fii xullatin bilad xiran, xamraa'a oo guduudan ama casaan ah, axsana ka qurux badan min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa sal alla alayh wasalam. waayo lahu shacarun timuu lahaa, yadribu gaarahayoo garaacaya min kabayhi garbihiisa, bucaydu maa bayna alminkibayn garbihiisa inta u dhaxaysana ay kala fog yihiin. lam yakun ma uusan ahayn bilqasiiri mid gaaban walaa bitawiili iyo mid dheer labadaba, mid gaaban iyo mid dheer labadaba ma ahayn rasuulka. xadiidka shanaad, xadaanaa muxamed ibnu ismaaciil, xadaanaa abu nucaym, xadaanaa almascuudiy can cuثmaan bin muslim bin hurmuz can naafic bin jubayr bin nucym can cali bni abi aalib radia allahu canhu qaal, cali wuxuu yidhi lam yakun ma uusan ahayn annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam bitawili mid dheer walaa bilqasiiri iyo mid gaaban, dheer iyo mid gaaban ma uusan ahayn. shashanu lkafayni, shashanu lkafayn, kafaynkiisa gacmihiisa kafaynka kuwa adag bay ahaayeen, waalqadamayni iyo gomdihiisaba. nebiga gacmihiisa iyo gomdihiisa markaad fiiriso haliil bay ahaayeen, kuwa aad u adag. dakhmu ra'si, mid madax weyn buu ahaa nebiga. madax weyn marka lagu leeyahay dadka madaxooda weyn yahay ma laga wado, madax waa labo ama waaba saddexda, midna waa mid aad u yar, midna waa mid yaraantaas ka weyn oo laakiin weynaanta dadku ay cudurka u maleeyaan oo kale aan gaarsiisnayn. iyo dad madaxa laga gugubo madaxoodu weyn yahay, madaxaas weynaanta ma ahayn, mid madaxiisu yar yahayna ma ahayn. qofku haddii madaxiisu yar yahay waxaa inta badan la tilmaamaa xagga caqliga inuusan sidii la rabay ahayn, xagga xifdinta sidii inuusan ahayn. kan aad u weynee dabka lagu dhajiye dadku gubaanna waa xanuun kale. amaa labadaa mid u dhaxeeyaa jiro, waa madaxa ugu fiicane ugu wanaagsan xagga xifdinta marka la fiiriyo, caqliga marka la fiiriyo, waxgaradka iyo garaadnimada, fikirka iyo ra'yikeenka, kaasaa aad ugu fiican. marka rasuulka dakhmu ra'si wuu madax weynaa, madaxiisa miduu weyn yahay ayuu ahaa. dakhmu lkaraadiisi, karaadiis xubnihiisa, jirkiisa xibnihiisa inta ka soo harayna dakhmi kuwo weyn bay ahaayeen. tawiilu lmasrubati, masrubadiisu way dheereed. masrubada waxaa loola jeedaa waa timaha ka soo bilowda inay ka soo baxaan, waa timo jilicsan baa jira, sadrigay kasoo bilowdaan laabta ilaa hoos bay usoo socdaan, dadka gobol ka mid ilaa xondhurtay usoo gaaraan. timo jilicsanoo laabta saas uga soo baxdaa jirta, masru baa la yidhaahdaa. kuwaasna way dheeraayeen. idaa mashaa markuu soconayo nebiga sala allahu calayhi wasalam takafa'a markuu nebigu soconayo sala allahu calayhi wasalam takafa horaan usoo tilmaanay, hor socod buu ahaa, ku dhaadhaca buu ahaa, wuu hor socon jiray. macnaha takafa'a wuu hor socon jiray, takafu'an hor socosho, macnaha mid dhulka inuu goosanayo. dad waxaa jira markay soconayaan aada moodo inay gadaal u socdaan, dad batii ah oo socodkoodu uu culus yahay, iyo dad degdegaya. kuwa degdegayo rasuulku ahaa sal alla alayh wasalam. dadku xisleen dhulka buu goosanaya rasuulku markuu soconayo. marka takafu'an buu ahaa mid hor socon jiray,
wuu horsocon jiray rasuulka takafu'an horsocod ayuu horsocon jiray kaannamaa waxaad moodaa sidii yanxatu inuu ka dhaadhacayo min sababin meel sabab ah. sabab man xadara min alardi baa la yidhaahdaa, meelaha dhulka laga hoobto inuu kasii daadegaayo ayaad u malaysaa. lam ara ma arkin qablahu rasuulka hortiisa walaa bacdahu iyo gadaashiisaba milahu wax asaga lamid ah, wax asaga lamid ah ma aanan arkin rasuulka hortiisa iyo gadaashiisa labadaba. inta waxay tilmaamayaan rasuulka qaab khulqigiisa iyo qaab abuurkiisa iyo sida markaa uu ahaa. noo joogta insha allahu tacaala xadiidka 6aad ayaan kasii qaadi doonaa. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.